bismillah. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan intana daawanaysa waa mar kale iyo Golac Araweelo kusoo dhawaada. maanta waxaa cawan joognaa annaga Golac Araweelo waxaa marti ku ah garyaqaan Axmed Yaasiin Sheekh Ibraahim oo asigu ah xoghayaha arrimaha dibadda ee jabhadda wadaniga xoreynta Ogaadeniya ama ONLF dadka dhan yaqaanaan. marka garyaqaan ama xoghaye kusoo dhawow Golac Araweelo marka hore. Golac Araweelo waa gole u heelan jihaynta, baraarujinta iyo wacyigelinta ama wargelinta ummadda Soomaalida meel kasta ay joogaan. aniga hadeerta jigjiga waa markii igu horreysay oo imaado, adinkuna waa dhulkiinii, laakiin waa markii ugu horreysay si nabada aad ku dhex lugeynaysaa. waxaan jeclaystay igana ogolaatay in maaragtay aad su-aalo kaa weydiiyo. maaragtay su-aasha ugu horreyso marka aan rabay inaan ku weydiiyo waxay tahay, ONLF waa jabhad cid walba oo Soomaali ah ay ka warhayso jiritaankeeda iyo waxay u dagaalamaysay, maadaama dowladda Itoobiya idinka saartay marka liiskii argagixisada oo aad dhulkii kusoo laabateen hiigsigiinii xornimo doonka ahaa. wax miyaa iska bedela? haddii iska bedelaysa isbedel noocee ah waa fikirkiina maanta muxuu yahay? Lula aad baad umahadsan tahay. waan ku faraxsanahay in caawa golaan kaala qayb qaato. waxaan filayaa dadkuna haddii aan ladmo inay ka heli doonaan barnaamijka. intaa markaan ka gudbo, marka hore aan ku bilaabe markii ugu horreysay nabad jigjiga ku dhex marna maaha. jigjiga waan joogi jirnay, waa laga yaabaa anigu markii ugu horreysay jigjiga lama hadday leetahay, laakiin ONLF ahaan macni jigjiga hadda uguma horreyso. intii dagaalku socdayna way joogtay. hadda ku horna maamuladii ka jiray way joogto, way qayb bay ka ahayd. intaa markaa ka gudbo, ONLF runtii dee aduguba saad sheegtay waxay ahayd urur u halgamaya aayaha ummadda Soomaaliyeed ee Itoobiya ku hoos nool. muddooyinka ugu dambeeyeyna dagaalku kula jiray dowladda Itoobiya. dagaalkaasoo runtii suu ku bilowday iyo haddaan gallo taariikh dheer ku noqonaya. laakiin ONLF 1991 markii Itoobiya isbedelku ka dhacay waxay ka mid ahayd ururadii ama axsaabtii siyaasadeed ee habka nabadgelyada inay kaga qayb qaataan isbedelkaas macni doortay bay ka mid ahayd. 1993 waxay ku guuleysatay doorashadii 86% bay ku guuleysatay. waxayna soo dhistay dowladdii ugu horreysay ee si xor ah magaranaysa doorasho xor ah kusoo baxda. waxayna ahayd dowladdii ugu dambeysay doorasho xor ah kusoo baxda. 1994 horraantiisii markii dowladda Itoobiya isbedel samaysay. isbedelkaas wuxuu ahaa waxay u bogweyday barnaamijka iyo siyaasadda iyo ahdaafta ay hiigsanayso oo jabhadda waddanka xorriyadda. taas waxay keentay markii dowladdii si cad inay bareer ah inay dagaal ugu qaado. saa darteed dagaalka hadda socday muddada 24 sano wuxuu ahaa dagaal isdifaaca u ahaa, ma ahayn dagaal ONLF intay u diyaar garowday ay qaabkaa ku bilowday. ma ahayn ahdaafta ay mar walbana markii nabadda ay ku halgamaysayna ahdaafteedu way sugnayd, markii dagaalka ay ku halgamaysayna ahdaafteedu way sugnayd. waxay ahayd in ummaddaas la gumaystayna ay ka tilintooda gaarsiiso. hadda 21 bisha Oktoobar sanadkan heshiis nabadeed bay Itoobiya iyo ONLF ku kala saxiixdeen magaalada Casmara. heshiiskaas wuxuu horseeday in ONLF ay si nabadgelyo ah ahdaafteedii siyaasadeed iyo ujeedooyinkeedii ay ku fushato. marka taasaa keentay in ONLF hadda maanta ay halkan timaado oo magaranaysa ay bilowdo howlaheedii siyaasadeed ay ka bilowdo si nabadgelyo ah uga bilowdo. waxa isbedelay waxa weeyaan qaabka lagu raadinayo mabdii ahdaaftii aan u dagaalamaynay. laakiin hadafkii isagaa wax iska bedelay ma jiro. waxay u taagan tahay ay ka talinta ummadda u taagan tahay, taasayna ku dadaali doontaa. laakiin qaabkii lagu raadinayay baa wax iska bedelay. masha Allah, aad baad mahadsan tahay. horta been ma aha markii ugu horreysa maaha, laakiin sanadadii ugu dambeeyey caqabad ayaa hadda weli naga wada hor muuqata marka ugu horreysay ay meesha soo gelayso. sidaad sheegtay Casmaro waatii aad heshiiska ku wada gashay dowladdii afis la fidiyey arshan si nabad ah in lagu wada hadlo oo la joogo. marka hiigsigiinu marka maanta muxuu yahay? dowladda Itoobiya inaad si caadi ah uga mid noqotaan oo noqotaan
dad shacab ah oo soo noqday oo xasilooni dadkooda kula noolaada oo maaragtay gobolkooda ka qayb noqda oo mase waxaad rabtiin inaad maaragtay xisbi gaara noqotaan oo u tartama madaxtinimada oo halkaas dalkaas ka soo gala? طبعا waxa weeye jabhadda wixii loo aasaasay wuxuu ahaa hadaf mucayan ujeeday leedahay yool ay eegsanaysay leedahay barnaamijyo siyaasadeed oo rabtay inay fulisay leedahay waxay xambaarsan tahay marka mas-uuliyaddaasi xilkaas ay xambaarsan tahay ilaa ay xilkaas gudatana ma joogsanayso waxa ay dagaalka u gashay 24 sano ay dagaalka ugu jirtay waxa weeye wuxuu ahaa inay xilkaas gudato haddana kii unbay sii wadi doontaa saa darteed waxa weeye iyadoo ahdaafteeda iyo barnaamijyadeeda siyaasadeed si nabadgelyo ku raadsanaysa bay sii wadi doontaa xilkii dusha ka saarnaa qaabka ay u wadi doonto waxa weeye qaab nabadgelyo weeye heshiiskan hadda galnay waxaa jira waajibaad dowladda Itoobiya saarayo iyo ma garanaysaa fursado uu siinayso waddan waxay in ay ahdaafteeda si nabadgelyo ku wadato dowladda Itoobiya ay ixtiraamto heshiiskan ay ixtiraamto qawaaniinta iyo shuruucda waddanka u yaalan ay ixtiraamto kuwa caalamiga ay ixtiraamto marka inta ay taasi jirto oo ixtiraamka noocaasi uu jiro jabhadda waddan waxay hawleeda ku wadan doontaa si nabadgelyo ku wadan doontaa dabcan qaab siyaasadeed bay ka qayb qaadan doontaa waxay ka qayb qaadan doontaa horumarka waddanka ka qayb qaadan doontaa xasiloonida iyo maaragta waddanka sidii nabadgelyadii dib loogu soo celin lahaa loo adkeyn lahaa ka qayb qaadan doontaa waxay qayb qaadan doontaa daryeelka iyo maaragta bulshadan dhibka faraha badan uu soo gaaray sidii wax loogu qaban lahaa bay ka qayb qaadan doontaa marka waxay noqon doontaa hawl weyn oo arrimo bulsho iyo arrimo siyaasadeed iyo arrimo amni intaba isugu jirtay noqon doontaa wayna xilkaasna way sida ay tahay u gudan doontaa haddii ilaahay insha allah tacaala. laakiin taasi waa tii Itoobiya ka wadan ahaan markii loo soo noqdo dowladda deegaanka Soomaalida maanta dowlad meel gaar ah ka jirta adinkina waad soo noqoteen ayada dhankaas sideed talagalkiin yahay inaad maaragtay la jaan qaadaan qaabka la soo jaqaan doono waxa weeye sida uu heshiis ku dhigayay heshiiska horta uu gaarnay heshiis qabiya ah waa heshiis dhammaystiran ma ahayn waxaa ku jira qodobo weyn oo masiiri ah oo macni loogu talagalay in guddi isku dhaf ah magaranaysa loo qabto oo ay madaxajoodka sii wadaan waxyaabaha marka noo qorshaysan dowladda waanu saaragnay madaxweynaha waanu saaragnay waxyaabaha noo qorshaysan waxaa weeye in guddi la qabto guddigaas laba heer weeye guddina waa heer federaal weeye oo arrimo federaalka ku xidhan baa lagala xajoonaya oo masiirka ummadda uu qayb ka yahay qaybna waxaa weeye waa heer deegaan weeye marka waxyaabaha heerka deegaan lagala hadlayo waxaa weeyaan dee qaabkaan u wada shaqayn lahay yani hadda urur baa nahay weyn oo yimid oo kusoo biiray maaragta masraxii siyaasiga ahaa iyaguna meeshii sii joogeen waddanka dhibaatooyin fara badan baa ka dhacay qulqulatooyin fara badan iyo maaragta caqabado fara badan baa jira waxyaabahaasoo dhan sidii laysaga kaashan lahay wax laysku ogyahay loogu geedigeli lahaa weeyaan qorshe hadda noo yaalla marka labadaa guddi baana haddii aan ladhimo arrimaha isla sii furfuri doona arrimaha isla sii furfurayaan waxaa weeye amniga guddiyaa loo samay doono hoosaadyo arrimaha dhaqaalaha arrimaha daryeelka horumarinta ma garanaysaa arrimahan isgaarsiinta iyo waxyaabo badan oo aan anagu barnaamij nooga yaalay oo aan filayna in maaragtay xuquuqdii ay ku lahaayeen deegaan ahaan inaysan ka helin Itoobiya waxyaabahaasoo dhan waa waxyaabo noo yaalla weeye marka labadaa heer baynu noqon doonaan haddii la yidhaahdo sida ugu dhaqsaha badan baynu wada hadallada noocaas u bilaaban doonaa insha allah tacaala. ilaahay idinku guuleeye mid bilowda oo miro dhaliyana allah ka dhigo. sida aad sheegtay maaragtay siyaasadii baad diyaar u tihiin iyo inaad maaragta maamulkii wax ka noqotaan oo ummaddii higsigiinii hore yoolkiini meeshuu ahaa ama hadafkiini aad ka miro dhalisaan adigoo si nabada ku raadinayo tan soomaalinimo gartay laakiin marka tan Itoobiyaannimo loo gudbo ee federaalka la taagan yahay waxaan ognahay Soomaali baa la wada qaxay meel kastoo laga yimidba qor baa la wada tegay muwaadiniin kalaa la noqday jinsiyada kalaa la qaatay Itoobiyana sharciga ka jira waa wada ognahay oo alashan qof jinsiyad kala wada tahay siyaasadii ma faragelin karto ama maaragtay ma u tartami karto faragelintu waa meesheedii qowmiyadii baad ka tirsan tahay laakiin maanta sida nin siyaasi ah isuma soo shaqayn kartid xisbiga kama mid noqon kartid ona lefna maaragtay madaxdeedii badankood
waa dad jinsiyada kala haysto danta iyo inay noolaadaan ama badbaadaan ku qasabtay inay saa yeelaan marka taa maxaa idinkaga qorshaysan wala arrintaas horta sharcigan wuxuu kasoo jeedaa macna sharciga wuxuu ahaa uu sameeyey malazinaha uu sameeyey waxa ujeedada uu sameeyey wuxuu ahaa macna qodob dastuuri ma ahayn wuxuu ahaa maaragtay proclamation buu ahaa uu soo saaray uma ugu talagalay inuu kaga hor istaago kuna qabatay dadka axzaabtii siyaasiga markaa la tartamaysay waxaa jira marka qodobkaasi dad badan uu saameynaya Soomaalidu kaliya ma aha oramada uu saameynaya xaarada uu saameynaya sidaamada bilasho cid walba oo maaragtay ka qaxday wadanka dib ugu soo noqotay uu saameynaya marka qodobkaasi wuxuu leeyahay dad fara badan oo maanta u halgamaya in sidii loo baabi'in lahaa ka qayb ahaan dadkaas aan ka mid nahay haddii ma garanaysaa haddii inta doorasho ka horeysa la baabi'in waayeen waxa weeye la waayi maayo xal kale dowlad kale jira rag loo yaro oo hadda la qabtay baa jira marka waxaan rajaynaynaa in uu xal u la helo maaragtay qodobkaasina uu noqonin mid ka hor istaaga dadka doonistooda iyo maaragtay rabitaankooda ka hor istaaga haddii ay timaado xataa inay taasi dhacdo waxaa weeye oona inta baasaboorada ajnabiga wadata keliya maaha waxaa ka badan inta maaragtay baasaboorada Ethiopia inta wadata way yartahay وأنا دت كنا وكما قرأ سنة باسبور إثيوبيا حتى إني قاطع هم جنسية إثيوبيا قاطع الصومالي وي قفكو حلقة مركين ووتو مارتا باسبور الصومالي ووتا ده كرتا حبيبين ودني بعد كرتا وياهي لكن قف ودنكي وكل شيء شو وكال كمية واحد مركا لواي معي حتى هدي أي باسبور هذا عقبان نقدان لواي معي واحد شو دي بروحي ما شاء الله horta Allah fududay laakiin asmara heshiiska marka ku galeyseen marnaba qodobka ma laga dhawaajiyo ku jira qodobka si specific ma aan ugu hadlin laakiin waa macnaheedu waxyaabaha iman doona weey markii hadda guddiga heer federaal isla sameeyo waxyaabaha iman doona weey sababta dawladdan waxay ballan qaaday in ay fududeynayso ka qaybgalka siyaasadeed in cid walba u fududeynayso dimuqraadiyadda inay ku dhaqmayso ma garanaysaa qofka xorriyadiisa aan marnaba la xakamaynin la controlling sharciga noocan waxa uu discrimination weeye oo sharci loogu talagalay waa dad mucayan in laga celiyo siyaasadda lagu hor istaago marka dawladda lafteedu ma garanaysaa runtii iyada lafteeda uma fududa in ay difaacdo sharciga noocaas oo dadka kala midab soocay oo kala takoor marka waxa leedahay asha dawladda way u muuqataa wayna fududaan doontaa in wax ka qabato way u muuqataa waana isla soo qaadnay walow heshiiska uu ku jirin laakiin hadda arrimaha noocaas markaan u sheekaysan wasiirka arrimaha dibadda isla soo qaadnay laakiin waxay magaranaysaa heshiiskii galay ma aha laakiin inuu dhibaato yahay way u muuqataa mas'uuliyadda maaragtay dawladda oo dhan u muuqataa su-aashayda kale rabo inaan ku weydiiyo waxay tahay onlef shacbiyad taageersan xisbi ku haysay intii dagaalamaysay maahane ayaa jira intii dagaalamaysay askartina waa kuwa soo wada noqday oo dalka kusoo noqday adinkana waxaa rabtay si nabad ah inaad siyaasadii aada uga mira dhalisaan maxaad kula talin lahaydeen marka ama ha noqoto kuwa askarta ama ha noqoto shacabka caadiga banaanka jira ee awel idin fiirsanaya keliya laakiin aan war dhehaynin siyaasad maxaad kula talin lahayd maaragtay inay qayb ka noqdaan والله تلكلي ما لكن وحنا ودنا برنامج بانو ودنا برنامج سياسي oo qeexan iyo qorshayaashii lagu fulin lahaa barnaamijka siyaasadeed baan wadna dadka iyagu waxa weeye in halgamaysay iyo inaan halgamayninba horta dhibaatadu way wada taabatay oo dadka waxa weeye inay xorriyadooda lama ogolaan inay siyaasadda qayb qaataan lama ogolaan waxbarashadooda iyo noloshooda iyo maaragtay agabka caadiga ee nolosha xaalada looma ogolaan marka iyadoo laga faa'iideysanayo duruufihii la soo maray ee adkaa iyo dhibaatooyinkii iyo cadaadiskii iyo caburiskii faraha badnaa ee la soo maray aan hadda waxaa la haystaa fursad baa la haystaa lagaga faa'iideysan karo in horumar lagu gaarsiiyo kow bulshada in lagu horumariyo labo in yoolkii la higsanayay lagu gaaro qasab ma aha inaad xabad u rido yoolka waxaa weeye hadday suuragal kuu tahay inaad nabadgelyo ku gaadho waad ku gaadhayso ku higsan karaysaa sababtoo ah waxaad nabad ku gaari karayso dee colaad kuma raadinaysid marka ma garanaysaa barnaamijkaas marka waxaa weeye waa barnaamij
dhammaystiran oo haddii la yidhahdaan aan rabno inaan yani ku hogaamino bulshada waxay u baahan tahay soo kabasho fara badan bay u baahan tahay runtii dhibaatooyin fara badan baa gaadhay oo dadka waxa weeye cabsidii traumatized bay noqdeen cabsidii baa weli ku jirta waxay u baahan yihiin marka waqti bay u baahan yihiin waxay u baahan yihiin xoog in la geliyo maskax in la geliyo u baahan yihiin dhaqaale in la geliyo u baahan yihiin marka waxyaabahaas waa waxyaaba qorshaha noogu jira wey haddii la yidhaahdo marka cid walba oo ku qanacsan mabda iyo ahdaafta aanu leenahay waxaan ugu yeedhinaa in maarata ay nagala qayb qaataan gaadhista ahdaaftaas iyo fulintooda in nagala qayb qaataan dadkuna wada furan yihiin oo neef ma aha seerka la xiran ma aha waxaa weye waa wax furan weye cid kasta oo aan markii hore xubno ka ahayn xubnay ka noqon karaan hadda fursadda macnihii la iska xijiro laga moosi maayo marka waxaan ugu yeedhaynaa bulsho gacmaha is haysata oo mid ah oo taqaana meesha ay u socoto oo Soomaali ah og waxa ay higsanayso inuu yahay Soomaali ayhiisa ka tashada waan idin ugu yeedhinaa taasaan ugu yeedhinaa barnaamijkan waa noocaas waxaa jirta inkastoo dhulkan ay markii caqabadiisa badnaayeen gumaystihii intuu joogayba kelmadan ogaadeen magacaasi uu hirgala magaciina adinkana aad qaadateen laakiin dad badan ay dhihi karaan meesha waa qabiil oona lafdhanba waaba qabiil shaqo kuma laha soomaalinimo afka ka leeyihiin moogay waa sheeko qabiil ayaa taa maxaa ka dhihi lahayd ولا أنتاس وحاول يعني ذكر قارك ولا غياب الناس هكوسوا العضو حاول إنه اللي وحاول فكر كيسة ولا منطقة على مكان لكن أنا ما حاول لا هنا معني وحي خلطنا وخلطين وحي صحنا على وسحين مجا عوجرين وحلا واقعة معه جعل معه عاطفة قبيلنا معه وحلا واقعة إخراج كتاريخية دولية يعني وبدية وطن كان مركل بحينه إنجليزكو بحين يتوبي كوري تشيني أوغادين بالديج هشيسكي لوكو بحيي أوغادين باقوران دوكومنتيسكا إيو مارتا وحيالها كيا لنقالكا أوغادين بيكود قريهين مابابكو أوغادين بيكود قريهين سادرتي وحاوي نيفكا مركو كارلومو تددكا أدويديني سوحاتي هذا سمدي سات شيريس حلاد النيف ساو أو ساسو دير أو مدو أو ساسا هذا التلفون لو قرأ سمدي بالتلفون التلفون كانت كوبوريسا marka wixii baad u sheegay qofku marka uu ku dhaar ka soo maray hadana waxa way dalka waxaan ku raadinaynaa sumadaas magacaasan ku raadinaynaa documentskaasan ku raadinaynaa way dib yar tahay markaas in ma garanaysa qofka aad ku qanayso saas inta loo wato intaas weeyaan wax uu kaga duwan yahay magacyada kale ma jiro hadda مثلا Soomaali galbeed baa la dhihi jiray markii hadda Soomaali galbeed ay sii dhamaanaysan dibadaha ardaydii joogay baan ahaa marka xafiisyada timaado Soomaali galbeed macnaheedu way adag tahay in laga fahmo waxa galbeedka Soomaaliya baa loo malaynayaa waxaynu u qasbi jirtay markii aan ogaadeen baa marka tiraado ku garanaya marka waxa loo wato magaca waa raadkaas taariikheed weeye markasta oo laga maarmana annaga wax macno ugu fadhiyo macna gaar ah ugu fadhiyo dadka Soomaaliyeed maalintii isu yimaadaan oo ay helaan macni fursad u suura gelinaysa intay si xor ah isugu yimaadaan inay ka tashadaan oo dhahan dalkeena magacaan u bixinaa raalli baan ku nahay hadii geed ula baxayaan iyo hadii qaroon ula baxay hawd ula baxayaan ani waxa weeye dadka Soomaaliyeed xor bay u yihiin haddaan taariikhda dib ugu noqonana dowlad deegaankan haddaan joogno Somali State baa la dhahaa Somali State oo naf baa u bixisay oo naf dowladda markay qabsatay maantiri waxay awood u lahayd inay ogaadeen u bixiso laakiin ma ayna sameeyeen gudintii la qabtay baa la orda magaca soo bixiyay magaca dowlad deegaanka Soomaaliyeed baa loo bixiyay cabdi ilay baa Itoobiya ku daray Itoobiya hadda waa laga jaray calankana oo naf baa samaysay marka haddii annagu aan nahay dad ma garanaysaa cunsuriyiin oo qabiil iyo magac qabiil u tacaadufay haddii aan nahay waxaan ula bixi lahayn ogaadeen marka waa bixi lahayn laakiin dadka Soomaaliyeed ku ixtiraamen yaan nidhi magac ula soo baxa midda kale waxa weeye oo naftayna qabiil ahayn waxa ku cadaynaysa qabiil 24 sano ma jirin wax qabiil ku dhisan oo mabda qabiil ku dhisan oo reeb ku dhisan 24 sano ma jirin Soomaaliya waad ogtahay imise jiradood ba ka dhisto iska bilaabata
wixii oo dhan waxaa weeye mar hore 10 sano mid gaadhay ma jirto 35 sano hadduu ururkan maraya dhidhiidhigii ugu fara badnaa iyo dhibaatadii ugu fara badnayd uu soo maray haddana alxamdulilah wuu jiraa waxa uu jira waxaa weeyaan waa urur ahdaaf mucayan uu samaysan yahay cidda madaxda ka noqonaysa wadaysa waa cid ku qanacsan ahdaaftaas iyo barnaamijka ku qanacsan and by the way on left money ku direedo fulinta qaar badan qabiilka la sheegaya ahayn baa ku jira marka anu magacaas uu leeyahay yani karaamo gooni oo maaragta u wada dhayn ma jirto waa mahadsantahay hadalladaadii waxaa ku jirta moogta shacabka in maaragtay keliya in talo la siiyo ma ahan in wax loo qabtay ka waran haddii shacabkii ay ku dhex jiraan ama ay ku dhex jiri karaan ayagu qayb oo naftirkeeda ka tirsanayso eedayn ama u aragtaba inay yihiin cadowga dilay kuwaas maxaad si aad u daaweysa aad dhihi lahaydeen inta badan oo nafarta wax ka sheegtaa waa un cadowgii la dagaalamay waxaa weeye cadowgii inay gumaysanayeen la dagaalamin 24 sano dadkan aad buu kala qaybay wuxuu gaarsiiyey heer laba wiil oo walaal ah ay midba dhinac kale ku dhinto iyo midba dhinac ka soo jeedo taasina ma ahayn dadka intooda badan sida u badan majority-goodu qanacsanaan ay ku qanacsan yihiin hadafka iyo mabaadi'da Ethiopia wadatay ma aha cabsi ama maaragtay dhadhamo iyo dadka maani dhibka u geeyay waxaa dhacaysa markaa eedaha intooda badani waxay ku salaysan yihiin ciidan baa la soo hubinay Ethiopia soo hubinaysa jihadii u soo diraysa jihaduna dee ciidan soo weeraray uma kala macni waxa weeye ciidan baratu soo weeraro inuu Soomaaliya iyo Ethiopia yahay wax macna ku sameeyay ma macnaha waxa weeyaan waa ciidan ku soo weeraray waxaa dhacaysa marar badan marka ciidan Soomaaliya la soo hubiyay markii la taqaadanto dadka layso dadka qabiil weyn la doolaysa ma fiirinayaan macni hebel muxuu ku dhintay hore Ethiopia uu watay Ethiopia barnaamij ku soo dhigtay Ethiopia ma garanaysaa Soomaali kalisay waxaasoo dhan lama fiirinayo wax kaliya la fiirinayo waxa weeyaan hebel waa inay hebel buu ahaa horta eedda inta ugu badan waa taas weeyaan laakiin mararka qaarkood way dhacaan khalad oo meel markuu dagaal ka dhaco khaladan lagu talgalo uu dhacaya marka jihadu diyaar bay u tahay wixii khalad ka dhaca inay ka garbaxdo ciddii soo cadaysay waxaas khalad u dhacay wayna jiraan marar maaragtay waxyaabo si khalad dad u dhintay jihadu ay ka garbaxdo oo ama xaqooda ay bixisay ama ay maaragtay badaldaar ka bixisay markaan lacag helo ma xaqaydan siiyay marka waxa weeye wixii khalad ah ku soo baxa ka dhaca bini'aadam baan nahay diyaar baan u nahay inaan ka garbaxno laakiin eedaynta inteeda badan waxay salka ku haysaa Malaysia la soo diray oo Ethiopia soo hubaysay unbaa markay dhimata qabiil noqonaysa marka waxay tahay qofkii wax tirsanaysaa waa inay soo cadayso in qofkeedii la dilay una ahayn ciidan asugu wax leeynay uu ahaa qof shacab ah oo kama ama kasloo dilay waa saas weeye qof uu la kac loo dilay ama kama loo dilay hadduu rabo wuxuu doonaa loo dilay laakiin qofkaasu waa in la gaaranti kareeyo inuusan hubna wadanin oo dagaalamaynin inuusan jaajuus ahayn inuusan maaragtay qaab kale oo Ethiopia ku shaqeynay yani haddii matalan yani evidence-ga noocaas oo kale hadduu jiro waxa weeye waa mar kastaba anaga waxaas oo kale markii yani eedaas oo noo soo jeed baaris baan ku sameeyay ana waxaan leenahay hay'ada garsoor baan leenahay way baaraan wixii haddii uu ma garanaysaa ay cadaato inuu khalad dhacay khaladku waa la qaataa haddii kalena waxaa la yidhaahdaa in qofkaas saas ku dhintay saas u ah hadalkaagiibaa waxay iga baxayaan maogta waxaa tiri kuwana waxay magdhow iyo wax la siin karo ayaa la siiyey kuwana waa loo cudur daartay waxaa layidhi maalintii maaragtay dhaqaaliga lacag la helo waxaan ognahay koox horumar ma gaari karto haddayna haysanin nabad haddayna haysanin lacag maaliyad sababto nabad markaa haysatid oo haddana inaad maaliyad leedahay ood noolaan kartid ood hore u socon kartid onalef alashaan sawirka anagu aan ka haysto su-aasha weydiinaya waxa waayo
inay ahayd jabhad ku tiirsan dadkeedii taageersanaa oo markaas iyagu qaaraan bixinaya qaaraan ku socday maanta maadaama nabad ay tahay ay dhulkeedii kusoo laabatay qaaraankii waa go-aya maxay ku noolaan doontaa onlf ama ay ku howlfulin doontaa nolol kuma socoto marka waa hay-ad dhan waay ama urur dhan waay ururna wuxuu u baahan yahay daqli suu u socdo uu u fuliyo siyaasadiisii yoolkiisii u gaaro marka waan fahmay waxaa weeye horta waxaa jira mabda asaasi oo jihadu ay ku dhaqanto mabda isku tashiga mabda isku tashigu waxaa weeyaan macnihii jihadu uu la soo kawsaday يعني مبادئ الأساسية اللي هيركلي وها مركي جبادو أي دقائق ضيبة سوت له هيركليني وحوها يعني باك جراوند بولها حاول جبادي الصومالي قلبين يعني الصومالي عاون جرت في عم بيعاون جرتي دين دقالة يبيدا يباقي وحو يعني دقال وحو تاجرات فرق بدن بيسين جرتي هذا نساس ويته وحاول وحكو أول بدن معي سوتها waxaa jiray waxay saameyn ku lahayd go-aan qaadashada siyaasadeed bay saameyn ku lahayd qofku markuu wax ku siiyo hadee waxaa laga yaabaa xataa walaalka hadduu yahay waxbuu kaa rajeynaya isna si marka taa meesha looga saarimo waxaa la sharciyey markii guurisa jihada la sameeyey mabda la yidhahdo isku tashi wuxuu kuu suuragelinayaa marka inaad u madax banaanaato go-aamadaada siyaasiga oo cid kugu mana sheeganaysoon ilaahay kaa himinaysan jirin taas waa midkaan ku baraarnay 24 sano hadda dagaal ku socday 24 sano Ethiopia wax ayna adeegsanin ma jirto ama dhaqaale ha noqdo ama ciidan ha noqdo ama sirdoon ha noqdo ama saaxiibo ay keenta ha noqdo wax ayna adeegsanin ma jirto haddana waxaan aaminsanahay inaan ka adkaan oo maamulkii ama rejiimkii TPLF inaan garanaysaa annagu ka adkaan sababtan kaga adkaanin waxaa weeye dowladana caawinayana ma jiro diyaarada dawo noo soo degayana ma jiro wuxuu ahaa mabda isku tashi shacabkayaga aan ku tashanin isku tashiga aan kaga soo baxnay dagaal waad ogtahay dagaal waxaa dowladu markay dagaal galayaan budgetkooda waa la 3 laaba marka mabda aan kaga soo baxnay dagaal siyaasadna waan kaga bixi insha Allah waxaan ku tashanaynaa وشعب كيانوي كو يلا ويصدق وشعب كيان ووح أنو أن الله سبحانه ما رتاي حشة يو نفك على على سوسارو وهي كلبين كليله إنه كان والحمد لله هذانو أنت نادي هاي سنة رب العالمين وحنا مسنها مركنا إنه كل سنة ده إن وحوي سؤال أيام كله وذاكي سؤاله قارب ويدي قارنه سؤالين dadka jawaabaysa iyo su'aal kale iga dhaxshan su'aasha ugu dambayso hadda hadalkaaga ugu dambeeyay iga dhalata waxay tahay in TPLF inaad ka guuleysateen baad dareemaysaa laakiin ka waran haddii lagu fekero in aadan ka guuleysanin ee aad tihiin maaragtay dad ama jabhad dagaal ku jirtay dagaal ku jirtay oo aan meel ay wax geysatay iyo meel ay wax dhigata aan lahayn oo maanta soo dhacday wax ay dhisatay ama meel u jiraan ayna jirin oo dad ayaga dhanba traumatic ah oo maaragtay u tunxin baarsan oo dawo u baahan la idin arko sawirka noocaas waxaa weeye macnii traumaticaas iyo tuntaas waxyaalaha reer galbeedku ay dadka ku sasabaan laakiin wadamadeedan inagu waxaa weeye qofku intuu markuu dagaalamo isagoo nool soo noqo wuxuu macnihii horuu shaqadiisii nool maalmeedkiisa caadiga ah hore ka bilowdaa tanna waa mid ka xag jirta wey waxaa weeye cadow aanan diinna wadaagin wax kaloo dhaqanna wadaagin waxbana wadaagin qasab nagu qabsaday xoog nagu qabsaday markaan intaan la dagaalanay 24 sano la dagaalamanay isagii aan oodaha u rognay horta macnihii annaga libinta gaadhnay qisa yar baan kuu sheegay waxaa weeye maalin sanadkii 2012 wada hadal baan dhex maray dowladda TPLF-ka dowladda Kenya dhexdhexaadinaysa magaalada Nairobi ka dhacay ama guddigan ku jiray
hal wareeg baan galnay, wareegaas waxaan isla gaadhnay meel fiican. wareegii labaad bay soo noqdeen, markay reflection sameeyeen waxay ogaadeen haddii wareegga labaad uu haddana sidoo kale noqdo inay iyagu guuldarradu raacayso. waxay kusoo talgaleen marka inay baabi'iyaan oo anay burburiyaan wadahadaladii. wayna sameeyeen, sidii bay sameeyeen oo lagu kala kacay. subaxii ugu dambeeyey marka aan kala tegaynay baa wasiirkii gaashaandhigga iyo ninkii qaybta harar haystay oo nin dambiye fara badan dadka naga galay oo Abraham Welder la dhaho, iyo nin Gabradil la dhaho oo isaga laftiisu yani qaybta siyaasadda haystay, nin dambiye badan waddanka ka galay. saddexdaa nin bay ahayd. way hanjabeen marka. waxay dhaheen ballan waxaanu idinka qaadaynaa xataa hal geed oo geeska Afrika ku hoos yaalood ku hoos gabataan inaad weydaan, yaanu ballan idinka qaadaynaa bay dhaheen. annaguna waxaan ku nidhi ballan waxaan idinka qaadaynaa Addis Ababa inaanu ku nimaado. saasaan ku kala tahay, ballankaasaan kala qaadanay. marka ina way ballantii baad fuliseen annagu marka waxaa weeye ballantii waanu fulinay. waxaanu marka goosanay dagaalkanaga inaan Addis Ababa u rabno. revolutionka ka dhacay Addis Ababa annagaa sabab u ahay. isbahaysigii aanu la samaynay Oromada iyo maaragtay nimanka la yidhaahdo Sidama, Gambela, Benishangul, isbahaysi weyn baanu samaynay. waxaanu iskaashi la yeelanay nimanka Gabdhood Sabalade Amxaarada. kaasi wuxuu sababo horseeday in maaragtay kacdoon uu ka dhaco Itoobiya gudaheeda. kacdoonkunbaa TPLF ooda u rogay. annagu maanta waxaanu joognaa Jigjiga, annagoon cidna ka cabsan ilaahay mooyaane, laakiin TPLF waa la ugaarsanayaa maanta. isbedela dhacay positionka isukin bedel booskeenii bedel. waan ka guulaysanay alxamdulillah. alxamdulillah. ugu dambeyntii adiga oo maaragtay daqiiqada qaadanay maxaad kusoo gabagabayn lahayd maadaama aan soo afjarayno waraysiga? su-aalo badan baan ku weydiiyey, ummad baa ku dhagaysanaysa. ummaddaa marka intii aad jawaabo bixisa adigoo markaa su-aalo lagu weydiinay, hadda adigoo aan su-aal lagu weydiinay adigu iska maxaad helayd ugu dambeyntii? ugu dambeyntii waxaa weeye waxaan jeclahay inaan fariin yar u diro shacabka Soomaalida ogaadeen. waxaa weeye marxalad cusub aan galnay. marxaladda cusub aan galnay waxaa weeye waa marxaladtii hore ka duwan wey. waxaan raadinaynay iyo hadafka aan u halgamaynay iyo ujeedada aan leenahay waa mid, laakiin waxaa isbedelay qaabkii aan u howlgelinay baa isbedelay. heshiiska aan la galay dowladda Itoobiya wuxuu horseeday inaan si nabadgelyo ahdaafteena siyaasadeed u gudano. taas marka waxay u baahan tahay inaan gacmaha isqabsanay u baahan tahay. yani waddankan dhibaatooyin fara badan baa ka dhacay, dadku eedo fara badan bay kala galeen, godobo fara badan baa la kala galay. waxaa keliya tee lagaga gudbi karo maanta marxaladan waxaa weeye dadka Soomaaliya inay u midoobaan, dantooda inay u midoobaan, inay u fakeraan hab qowmiyadeed, inay u fakeraan inay ka guuraan qabiilka iyo waxyaalaha ducufiga ee xasaasiyadda ku dhex abuuri kara inay ka guuraan. maanta Itoobiya waxaa weeye qowmiyad waliba gaarkeeda isu abaabulaysaa. wax ka dhici doona Itoobiya cid warka haysa malaha, ilaah unbaa garan karaya. cid waliba gaarkeeda isu abaabulaysaa. saa darteed qowmiyadda Soomaalidu maanta fursad bay haystaan. ururku wuxuu diyaar u yahay inuu dadka isu keeno, in uu maaragtay hal weel wax ugu rido. wuxuu diyaar u yahay inuu magaranaysaa cid kastaba uu goobteeda ugu tago, geed hoostii la fadhiisto. waxa keliyan u baahanay marka waxaa weeye inaan ka shaqayno nabadgelyadeena iyo xasiloonida waddankeena iyo sidaan horumar siyaasadeed u gaari lahayn. xuquuqo fara badan baa inagaga maqan Itoobiya. marka laga soo tago xornimadeennii wax badan baa inagaga maqan. xataa intaan sii wada joogayno waxaan xaq u leenahay in aan ka helno saamigeenna maaragtay xuquuqda aan ku leenahay dowladda federaalka. qowmiyadda Soomaalidu waa qowmiyad tiro badan wey. waa qowmiyadda saddexaad oo tiro ahaan marka la yidhaahdo, dhul ahaan marka la yidhaahdana waa dhulka koowaad weeyaan. haddana markii la yidhaahdo saamiga aan ka helo waxaa laga yaabaa dadka qaarka waxay dhahaan qowmiyadda 70aad bay gaaraysaa. waxaad arkaysaa markaa waxa inaga maqan baad arki karaysaa. marka xataa intaan sii wada joogno waxaan xaq u leenahay in aan saamiga iyo sheerka aan ku leenahay maaragtay dowladda federaalka inaan helno. waxyaabahaasoo dhan waxaan ku gaari karnaa oo keliya inaan iskaashano oon u fakerno hab qowmiyadeed inaan u fakerno. waa laga tegay dhinaca qabiilka, magaranaysa waa inaan halkaas iska dhigno.
marka baaqaan idin dariya kaas weeyaan inaan midnimo aan ku dadaalno magaraysa iscaafiskan aan badino horeyna u socon ما شاء الله كاسم في أها قريقان أحمد ياسين شيخ إبراهيم وأسوق الحقيقة رمها دبدة جبهة أونلف هل كان نوحي أيضا قلع عراويلو سيدة دكتهم بوا قلع صومالي لأولا مركز يجوكت أفرا waxaa lagu soo gudbiyana ma aha mabda'a qof leedahay waa warbixin loo rabo shacabku inay ogaadaan ama baraarujin ha kuu noqoto ama wax kaa maqan isweydiinaysa jawaab ha kaaga hesho ama aad wax ka baratid kolley wax tar un inay keento ma ogeyn haddaad aragtaan inay fiita keenayso dib ugu soo noqda Caraweelo insha allahu tacaala waxaan idin leeyahay aad baad umahadsantihiin inaad na daawanayseen asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu